السلام عليكم maxay ku kala dugan yihiin jacayladii hore iyo jacaylada hadda jira maxay tahay sababta ka dambayso in wiil walbo iyo gabar walbo oo sanadkan jira ay xiriir markii ay wada sameystaan xiriirkooda sida ugu dhaqsiyaha leh uu ku burburo muuqaalkeena maanta waxaan rabaa inaan ku falanqeyno ama aan ku kala dhigdhigno isbedelka ku dhacay jacaylka ereyga jacayl isbedelka ku dhacay iyo inuusan maanta ahayn jacaylkii la yaqaanay waa laga yaabaa inaad ii aragto nin ku dhagan noloshii hore ee qadiimiga ahayd ama nololihii hore qof la haysto kale inaad ii aragto laga yaabaa balse tani waa aniga aragtida aan qabo jacaylku waa erey aad iyo aad u qurux badan markii lagu dhawaaqayo laakiin hadda markii la maqlo waxa laga filanayaa xumaan dhaqsi waxa ku soo sawirmeysabo hebelay qaaban iyo qof qaaban dumarku faanayo ilaahay jismiga uu siiyay markii aad jacayl maqasho zamanka ama sanadka aan hadda ku jirno wax kale kuma soo sawirmaayo laakiin aslan markii la maqlo jacayl waxa soo sawirmi jiray nolol qurux badan jacayl qurux badan iyo waxyaalo la mid ah soo sawirmi jirtay erey qurux badan qof TikTok boodboodis ah ku soo sawirmaayo just iyo nin weyn ciyaal camal u dhaqmaayo iyo wiil waqtigiisa dhan ku bixinayo iska dhaadhicinta gabar yar inta yar isqalqaloocinayso waqtigiisa dhan wuxuu ku bixinayaa gawar yar oo inta isqalqaloocinaysa bis aw waqtigiisa dhan ku dhuminaya waxa kale oo jacaylka aad ku arkaysaa wiil yar oo waxba haysanin xitaa dharka uu qabo uu soo amaahday tabalcaara camal oo rabo hadana inuu ku soo jiito gabar alla jacaylka hadda jacaylkii qiimihii ay ka dileen waxa soo dhanna waa wax ku hoos duugan jacaylka waxaaba ka sii daranba maanta ma arkaysid wiil iyo gabar oo sidoo ilaahay ku uumay ku haasaawayo haasaabid waa taqaana ku wada sheekaysanayo qofka kale sidoo ilaahay u uumay awalan horta waa gabar inay rinji ismarisaa rinji maxaa ula jeedaa waa inay diirka iyo dubka iska qaadaa sababtaas u leeyahay ma taqaana gabadhu waa inay rinji ismarmarisaa oo ay iskuuskuustaa kadibna suuqa ay soo aado ama suuqa ay u soo baxdo ayadoo ismarmaroojinayso abuheelo ku soo haray waa inuu jeegada soo xiirtaa haduusan dhar qaali ah inuu ku soo labista uu soo awoodin waa inuu soo amaahdaa ani tan jeegada waa ku jira laakiin tan amaahda kuma jiro waa su'aal taagan weliga ma isweydiisay jacaylka wajigiisa laga been sheegayo dharkiisa laga been sheegayo xitaa labada qof waxa ay ku hadlayaan laga been sheegayo idinkoo marka sidaas oo dhan sameeynayo sidee looga rabaa jacaylka inuu noqdo marka mid qalbiga ku sii dhexwaara sababta uu misto uu ilaahay idin abuurayba ayaa wada rabinba inaad ku haasaawdaan ninka jeega soo fiiqdaa iyo gabadhi iskuuskuustaa rinji ismarisaa ayuu jacaylkii noqday sidee la rabaa inuu qalbiga ku sii dhexwaaro marka waa sababta ay wiil iyo gabar walba sanadkan ama zamankan jiro xiriir markii ay u samaystaan midba midka kale uu la fool xumaado wamood xitaa uu sii jirinba jacaylka haddii aad doonaysid in cimrigan yar uu ilaahay ku siiyay aad rabto inaad nolol nadiifa oo raaxa leh oo jacayl ku salaysan aad ku noolaato haddii aad rabto waa in shakliga uu ilaahay ku uumay aad ku qanacsanaataa haddii ay tahay inaad iskuuskuusto ama aad rinji ismariso ama aad wiilow jeega xiirato dhar tabala soo amaahato noloshii rasmiga uu ilaahay ku uumay qofka nolol kuma wadaagaysiinba sidee u rabtaa marka cimrigan yar aad haysato in qof kale aad si farxad leh ula qaadato qoraa reer Masri ah ama qoraa ka soo jeeda dalka Masar ayaa hadda ka hor wuxuu dhahay oraah ahayd dhalinyarada zamankan jiro wuxuu dhahay jacaylkii ahaa macnaabi ayay waxay ka dhigeen maadi ma fahmi kartaa kugu soo celiyo wuxuu dhahay dhalinyarada zamankan jirto jacaylkii ahaan jiray macnaabi ayay waxay u bedeleen maadi waxaan ka wadaa jacaylka hore wuxuu ku salaysnaan jiray wax macno leh waxay u bedeleen ayuu yiri wax maadi ah waana runtiis xaqiiqdii oraahdaas waa cajiib waana run jacaylku maantu waa wax qofka sidoo uu rabo uu ka dhigan karo sidoo rabo ka dhigan karaa sidoo rabo u qaadan karaa sidoo rabo u fasiran karaa sidoo rabo jacaylka u gadgadin karaa sidoo rabo isku kuuskuusi karaa sidoo rabo ayuu jeegada u xiiran karaa waa jacaylka maanta hadaba jacaylkii hore qofka isagoo sidiisa ah haduusan waxba iska bedelin fiiri oon gabadhu rinji ismarin wiilkana uu jeega xiiran aan la isqalqaloocinin midkaasi ayaa jacayl dhaba kana macaan midka maanta jiro isku qalqaloocin waxa dhici jirtay ragga qaar markii ay gabar jeclaadaan oo laga guursado amaba ayba ka dhimato in noloshooda oo dhan aysan guursan jirin qaarkooda god ayay u galeen waxaba kamid ahba cilmi boodhari iyo qays hadaba jacaylka maanta muxuu muuno u lahan la yahay muuno waxaan ka wadaa saale maxaan loo weyneyn la yahay jacaylka maanta muxuu qiimo u lahan la yahay aragtidaada commentiina ugu wadaag insha Allah hadaba sida muuqaalka ku soo sheegay hadaad ku jirto aadna doonaysid jacayl nadiifa nolol wanaagsan qof ku fahma hadii aad doonaysid inaad hesho zamanka hadda lagu jiro wixii aan soo sheegayna aad kamid tahay meelaysid wala ha isdaalinin so insha Allah hadii aad helaysidna qof sida adi aad tahay kula iska fiicnaan lahayd laakiin aslan waa in horta shakligu ilaahay ku
siiya lagu haasaawaa iskuuskan rinji ismariskan intuu socdo jacaylka runta ah lama helaayaba soo insha Allah gabdhuhu inay isnaashnaashaan wax ceeb ma aha mowduuc marka ka hadlayno dadka in meesha aan u wadna ay fahmaan muhiim ah gabadhu inay isnaashnaashto naashnaashid waxaan ka wadnaa midabku Ilaahay siiyay inay wax ku dartaa ma ahan inay wax ka dhintaana ma ahan laakiin midabku Ilaahay siiyay inay iftiimisaa ama ay bilicdeeda soo saartaa gabadhu wax ceeb ma aha diintan wax way ka qabtaa laakiin midabku Ilaahay siiyay oo dhan inay bedeshaa lama ogola sida caadi ahaanta waxa jiro daawooyin herbal la marsado sida hurudka iyo waxa soo kale ay gabdhuhu marsadaan ay isticmaalaan wax sida caadiyan lama diidinba laakiin waxa xun in gabadhu ay waaska dhaxgasho jirkeedii oo dhan bedesho xididaha jirkeeda mar la arko waxa siya daran insha Allah ayaanu ku sii dheeraan qof walba wax garada waxaan ka hadlaynaa uu fahmi karaa mowduuceena maanta halkaas aan ku soo akeen doona jacaylkii muunihii iyo qiimuhu uu lahaa anaga ka dilnay dhalinyaro yaa soo ceshano marka insha Allah muuqaalkeena maanta halkaas ku agyahay inta ka kulmeen muuqaalkan waxa idin leeyahay aniga UK jalka cadawanaysa King UK official 7 next video mumkulata awliya keen mana abahooda